السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران كراما channel ومركلة إيه مقالدين حساه لها أي نكسو قادن جيرني مقالد الليابك إيه عابسدا له أي كاميرا قبتين هذا كهر waxaynu ku soo qaadanay in xayawaano aynu soo qaadanay aan hore caalamka loogu arag muuqaaladaas dadka qaarna waxay yiraahdeen waa been dadka qaarna waxay yiraahdeen waa muuqaalo sax ah laakiin muuqaaladan muuqaalkan aynu ku soo qaadan doono waa 7 muuqaal kuwaas oo in badan lagu kala soonaan karo waana ay ku kala duwan yihiin kalsoonida lagu qabi karaa awoodda ay leedahay idinkuna fikirkiina ayaad ka soo dhiiban doontaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar gambalelkana furaadi aad baad u mahadsantihiin muuqaalkeenan maanta ugu horeeya Romania tuulo kamid ah ayaa waxa lagu sheegay makhluuq ama xayawaan aan hore caalamka loogu arag in uu ku nool yahay waxaana soo qabtay dadkii ku noolaa tuuladaas muuqaalkan maanta waxay noo soo gudbiyay saxiix American ah ama nin American ah kaas oo booqday tuulada ku taala Romania kadib waxa uu ugu tagay meesha qodba yar looga dhisay oo bira ka samaysan oo lagu xiray oo ay dad badan ay ku urursan yihiin waxaana uu ugu tagay xayawaan aan hore caalamka loogu arag waana muuqaalkan aad imika arkaysaan waxa uu yiri markii ugu horeysay ee sheekadan la iga sheekiyay anigu ma rumaysan ilaa iyo aan indhahayga aan ku soo arkay waxaan u suurta gashay dadka tuuladan ku nool in ay soo qabtaan halkan jeelkan yarna ay ku xidhaan xayawaankan waxaana jira oo leeyahay xayawaankan waa mid xaqiiqo ah laakiin anigu markii hore ma aan rumaysnayn dadka qaar ayaana yiri muuqaalkan waa muuqaal aan sax ahayn idinku bal ka warrama fikirkiina niyada dhexe waxa aad u caan baxday aragti ama tijaabo la magac baxday homunculus taas oo ah in waxyaabo sixir ah oo kale ama aan idin faahfaahiyay ukun la soo qaado marka lagu tufo waxyaabo sixir ah kadibna la dhigo qol madow ama meel madow lagana tago 10 cisho iyadoo aanay cidi taaban 10 cisho kadib waxa kaaga soo dhacaya beedkii uur ku jir baalal ku dheh garbaha sanadadan ama qarnigan ay ugu dhawaayeen ku jirna youtubers badan ayaa sheeganaya in ay wasameeyaan laakiin kuma aysan guuleysan laakiin youtuberkan aynu maanta soo qaadanay isaga waxa uu sheeganayaaba in uu ku guuleystay arkayna sidaynu wada jeednay ama markhaatiga uga wada hayn markii uu jabiyay beedkii waxa ka soo dhacay makhluuq qariib ah oo la yiri waa kii berigii hore la sheegi jiray waxa uu yiri tajribadeedii anigu waan ku guuleystay laakiin dadka qaar ama badanka waxa ay yiraahdeen waxaan waa khuraafaad waran balaado fikirkaaga muuqaalka saddexaad aynu gudubno sanadii 2011 ayaa waxa dhacay miyada ama meelaha qiimaha ee dalka Colombia ku yaal ayaa waxa lugeynayay nin markaa kadib waxa uu arkay iftiin hortiisa ka baxaya laakiin inta kadib wixii dhacay ayaa aad iyo aad u cabsi badnaa sida aynu wada jeednay markhaatiga uga wada hayn wiilkii ama ninkii waxa ku soo cararay makhluuq qariib ah la yaabna leh caalamkana hore loogu arag markii hore wuxuu caadi uga arki waayay waxa uu maleynayay dhagxaanta habeenkii ifa laakiin kalarkiisan ayaa u eeka dhagxaanta markuu iftiinka ku ifiyana waaba uu ku soo cararay laakiin dadka badankooda waxay yiraahdeen muuqaalkan waa muuqaal aad iyo aad u been ah laakiin waa uu ku adkaysanayay ninka muuqaalkan soo duubay ama soo adkeeyay waxa uu la kulmay inuu xaqiiqo yahay
dalka Ukraine wiil dhalinyaro ah ayaa sawiranayay muuqaalana ka qaadanayay mid ka mid ah webiyada dalka ku yaala, laakiin bariishkii dul marayay ayaa waxaa dhacday in uu ka arko makhluuq qariib ah kaas oo bariishka hoostiisa si la yaab leh ugu socda. dadka qaar ayaa waxay yiraahdeen waxani waa qof caadi ah oo bariishka hoostiisa ku socda, laakiin dadka badankoodu waxay yiraahdeen macquul ma noqon karto waxan inuu bashar caadi ah noqdo, sababtoo ah gacmihiisa iyo lugihiisa horta marka hore waa isla leegyihiin, marka labaad horta si yar oo fudud ayaa uu ugu socdaa bariishkan hoostiisa oo macquul ma noqon karto qof bini aadam ah inuu ugu socdo. Aniga fikir ahaantayda ma oran karo waxani waa qof caadi ah, bal ka waran adiga fikirkaaga. mid ka mid ah baadiyaha dalka Mexico ayaa waxaa dhacda in ay in badan sheegaan in ay ku arkaan xayawaano aan hore caalamka loogu arag oo baadiyaha ama tuuladooda duulaya. dadka badankooduna waa ay beenayaan oo waxay yiraahdaan waa beenaha badan ee ay sheegaan, laakiin waxa u suurta gashay inay cadeeyaan oo waxa ay qabteen shimbir aan hore caalamka loogu arag, ama shimbir laguma sheegi karo ee makhluuqan aad iminka arkaysaan oo iyaga dulduulay, waana kan muuqaalkii laga soo qaaday. sida aad arkayseenba makhluuqan duulay uma eka shimbir ka mid ah shimbiraha caalamka lagu arkay, qof ka mid ahna ma uusan garanin marka loo eego baalashiisa iyo afkiisa weynna waa la yaab. ta kale la yaabka ah ayaa waxa ah inay dadkii tuuladu ay u garteen inay noqdo xayawaan iyaga u muqadas ah. muuqaalkeenan lixaad waa sanadii 2010 dalka Mareykanka. niman ayaa waxa ay gaadhi ayaa isoo qaateen, waxayna soo mareen meel magaalada aad iyo aad uga fog. meeshan waxa ay ku arkeen makhluuq la yaab geliyay, kadib gaadhigii waa istaajiyeen, waxa ayna dooneen inay waxaan bal ay arkaan sawiraana dadkan ay u gudbiyaan, laakiin waxay la kulmeen ayaa waxaan ah makhluuqan la yaabka leh ee ay arkeen aynu inaguna u wada jeednay. waxaa xayawaan aan hore caalamka loogu arag, sida qaabka iyo xarakaadka uu sameynayana la yaab uu leeyahay. marka waxa uu ku baraarugay inay dad ag joogaan, ama markiibana waxa uu sameeyay waa uu isqariyay. muuqaalkana waa muuqaalada ugu kalsoonida badan ama ugu saxsan ee ay xayawaanada aan hore caalamka loogu arag ay ka soo muuqdeen. waqti dambe oo habeenimo ah, ninkan muuqaalkii noo soo gudbiyay guriga uu degan yahay agtiisa waxa uu ka maqlay codad aanu hore u maqli jirin, la yaabna leh. marka kadib guriga waa ka soo baxay, waxa uuna arkay in codku ka soo baxayo geedaha dhexdooda. markii uu raacay meesha uu ka soo baxayana waxa uu la kulmay sidaynu wada arkaynay. markii codkii raacay waxa uu la tegay meeshan, waxauna kala kulmay makhluuq la yaab leh. markiibana waa uu isqariyay makhluuqan aan hore caalamka loogu arag, waxaana la yiri makhluuqan waxa uu eeg yahay xayawaanka Soomaali magac kale waan weeye ee luga dheere.